السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام يا برنامج كان واسكا كفتن عاوة كفتن أسرع السوقالي ما أها برنامج هذا عادي هذا نورمالي أنسى من جري ما أها horta qadar yar oo ogeysiisaan bixinaya oo ah waxa telefishinka kasan laga soo deyn doona oo soo noqon doona barnaamijkeena la fidso oo aan muddo 5 sano ah bixin marka bariyan soo faafin doona hadii Ilaahay yaraaho maxaan emailka sida loo soo xiriiraayo intii abwaanada intii rabteen abwaana noqdaan inta sheekooyinka xiisaha leh raba inay gudbiyaan oo dhan waa ila soo xiriiri kartaa barnaamijka waxa kale oo la socon doona abaal marino sidii marka hore uu ahaa buugaag waxba la isku abaal marin doona marka caawa waxa rabaa inaan la kaftamo raba oo social media iyo sida aan isticmaalno inaan ka hadalno actually barnaamijka caadiga ah ma aha marka waa la kaftamo barnaamijka kaftana waaye horta qaraabo social media hada wuxuu noqday qayb nolosha kamid ah runtii waxa waaye qayb weyn oo nolosha kamid ah dad badan wuxuu u yahay qayb shaqadooda kamid ah oo waa ku shaqeystaan hadaa rabto waa meel aad lacag ka abuuri karto hadaa rabtana waa meel aad maxay ahayd toonay aad ku madadaalo karto hadba waxa u soo gasho hadaa rabto inaad wax baratana waxa jira channel wax laga barto meel wax ka baran karto okay dibka laakiin wuxuu ka socdaa qaabka wadooyinkeena isku gudbayaan ayaa dib ka socda marka caawa kaftankaas yar ayaa rabaa in aad la wadaago oo aan maaragta ka shaqeysano baraha bulshada ama social media waa badan yihiin dad baan moodaynin xitaa inay Viber-ka iyo WhatsApp-ka ku jiraan Viber-ka iyo WhatsApp-ka maadaama internet lagu isticmaalayo business version oo leeyahay qayb business oo leeyahay qayb kale oo business ahayn oo leeyahay labadaba waxa waxay ku jiraan waxa social media ku jiraan waxa kale social media ku jira Instagram WhatsApp maxaytan Snapchat waa badan yihiin waa soo badanayaan kolba waxba ku soo kordhaya hadda waxa imaaday waxa imaaday TikTok oo asagana business version leh laakiin wali business dadka aad uma fahmin hadaa rabto inaad business ku faafsan kartaa mid laakiin qosol kale oo aniga marna aan ku qoslo marna aan la yaabo waxa waaye waa aragtayo dunida isku waqti ma ah qayb qorraxda u dhace qayb kale qorraxda u soo baxay xilligaas qayb ku jirta arbaca qayb khamiis ku jirta ya tan cajiibka ah waxa waata oo akala qaado isticmaalka telefoonada internetka isticmaalkooda maadaama internet ku shaqeeyaan waxa waaye daqiiqada ma kugu socdaan laakiin internet kugu socdo as far as internet haysato qofka rabtida gaari kartaa waaye ta ugu yaabka badan waxa waaye qof wadan kula jooga oo isku wadan joogtin ak soo wacay saqdhax ku soo wacaa xilli wuxuu ku soo wacaa ala soo jeedan ama qofka caadiga ah oo soo jeedan oo qof habeenkii shaqeysanayo iyo qof amuuri ku timid iyo qof iska xanuun la seexan kari waayay kaliya uu soo jeedo telefoonka ku badana dadka isku mid ma qaar telefoonka damiya qaarna waa u daaran yahay anoo kale telefoon ma damiya sababtu waxay tahay ilmahaygii ayaa qaar guriyo kala degan yihiin oo noloshooda ay raacdeen hooyaday ayaa meel kala degan laba caruur oo walaashay dhashay ayaa la degan kuwa kale intaas oo ila dhashay America jiraan isku waqti ma nihin waxa waaye emergency dhici kara nafta la isma siinin qof aa dhiman kara qof aa sakaraadi kara qof aa telefoonkeyga marka ma damiyo waa saak dhigaa gariiraan saara telefoonka soo gariira haw soo haada
واقبت مر واقبت مرنا ما قبن قف هردك كعداته مر واقبها مركا قبته كل ما جيفتا وهذا أنا جيف أنا أقول ما نايت شفتين كجرا ما سمحيه طب بنك قد حياة سلسلة دوينة أو أردية كاه يا وحيابها أنا أد أغياب إسكو ودنا أنا جوكتين إسكو ساعدتين قفك سوا كوكو سرمي لما دهي كرا إسكو ساعدتين يا يوكا كلا ودا جوكتين وحكو دها ها ما جيفتا ورمها ما نايت شفتين كجرا لها واجيف هاي صار وجيف وابا دحي waxyaabaha kale aadka u qaldan laakiin badana aniga aan ka warwareegto laakiin caawa aan rabo runtii in aad kala hadlo waxa kamid ah qof baa wuxuu isugu ka daraya nin baa ku soo galaya mama amina saatahay ana horta maamada waa iska jecelahay mama nabad u qoray ama habar yar amino eeda amina saatahay okay marka qofka mar hadduu eedo iyo habar yar iyo mama ku yiraaho وأنا وظيقة ده سكو سعدا كمان لا حكرا هاش مغا صادع كر مغا كعكرا يا مركو كنا بحي كله آمنة ما مدي وكتك يا الردية وحوايا جملة داس أو ساقر جملة كحكتا آمنة هرت عليك عمال لقو قبا هذا لحسة كان كهر أما صدح سكن كهر وحولها ماما ساعتها ماما النبض إلا وحبة قابل وقع غير ربا عاو برنامج كدن كفتن واي لما كلا حناقان وارنتو على اسكو الشيغايا نكستو وحيو كلايه آمنوا هرتو عليك ملقو قباه يا ها أنا قم مضع هايا ولا بس سؤالات ولا بس سنتينيس او توتالمنت اد وكلفك اون مرنا بإسراعي كره waxyaaba badan aan la yaabaa jiro oo xagga idinka ka soo qaban doona nin baa wuxuu ku leeyahay dadka waa iska mugtaan mar waa iska dhibaataysan tahay mar waa iska fiican tahay mar abateedka ka xiran mar cunto fiican isku soo nagdhabe waa soo nuure marba si waay mugta waxa dumarkana sidiisa waa isbadbedelaan naaga taadanin mateed nina loogu tala galay inuu maxay ahayd dameer camal u shaqeeyo naagaha laakiin waxa waaye dumarka mar waxa waaye waa iska relax iska tahay mar waa qosle mar waa iska faraxsan tahay mar maxay ahayd dhush isku dhex tahay mar waa murugaysan tahay marba si waay laba bariyo wuxuu ku arkaa laba maalmood wuxuu ku arkaa adigoo nuura bal ii kaadi qofka soo wacay halkan kala hadlay soo mar dambe soo wacay صاحبيالو waxaan hadaa ila aragteen bal waa idin la wadaagaya caawa sababta aan barnaamijyada caadiga ah iskaga dhaafay oo arintan idin kala hadlaa laba maalmood qof wuxuu ku arkaa adoo iska yaran nuuraya okay gabar public waa kugu weydii kartaa problem madaxa heblaayo wallahi billahi bariyahan waa dhalaalaysa walaalay maxaa isticmaasho waa gabar kale waa ka dhaxaysa nin gariya gafuur leh qof dumar wuxuu dhahaa war bariyahan waa naaxday horta xagga maxaad cuntay war adiga nina tahay yaaqay gabartan inay naaxday inay garba weynaatay inay camanka kuskusantay inay barideedu baxday maxaa ka galay nin baa tahay say wuxuu weydiinay waa waxyaabaha aan deep down la yaabo markasta waxa is dhahaa wax ma ka hadashaa at least hal qof xitaa haduu ku fahmo ama laba ku fahmaba waa waxaagii bal nin waaye gabar naaxidad xaakutus habaaraad qabtaaye habaar qabayo maxaa ku tus gabaray wax dhihi kartaa waxaa jira wax gabdhaha is dhihi karaan waxaa kaloo jira wax ay raggu is dhihi karaan oo wiilashu isku leeyihiin wiil dhan baa wuxuu intuu soo galo online oo live ku jira oo wax muhiim oo fiican u sheegaa adiga wax laga faa'iideysan karo sheegaa ku kala wuxuu soo qoraa ababa macaano waa ku jecla waa nin kale wariyaa allahi allah yah war adiga nin kala tahay ninkan waa ku jecla maxaa u dhahaysa ilaahay baar waaye
nin waaya nin naag ma aha naag adoo taxta hadday taa waa ku jecela waa dhigi karta because nin iyo naaga kala tiin waa la isku kiin qoray kala weynaada haddaad doontaan bal laakiin nin kale oo waxau dhaha wallaahi bilaahi aba maxaana wallahi bilaahi waa ku jecelahay waa too much waa wax cajiib ah waa waxyaabaha bulsho ahaan loo baahan yahay inaan iska saxno okay arrimaha kale waxaa waaye qof aadan garanaynin السلام عليكم السلام عليكم أما السلام عليكم وسلامة إسلامك وسلامة إسلامك سلامة إسلامك ما قفك مركو إسلامي هاي ويكدو حيسا قيمة أيو أكتر كلية السلام عليكم قيمة أكتر كلية قفك وعليكم السلام هالكا سلامتي من الله يسكد أفسده وحي كدن بيا وإن قفك هتاد اسك السلامة سنة هذا اللي يرى تحيي ما أتكتر ولا لسداتها اسك ورن ما في عنتهاي وفي عنها ولا الحمد لله والله بالله نمحى نكجرنا بس دنك لما الهد ما هنا هداف اسكتك تجينا ما جوجنا ما السلام عليكم هاي عليكم السلام أخرت هاي لا يا بنا والله بالله وحيابا الله يا با إذا لو ذا غير ضاعد أبي إسكورن ماله ساعته هاي ماله ساعة طال ماله أيان تباكوا يا ما أد وحلا مقطع وحلا شك مقطع وحدا ماله وحيرو كونا سها مقطع 3 minutes السلام عليكم هذا ربع ساقرأي ويا أنا ولي ياب مجار هذا عليكم السلام وتابعاتها مقطع تابعاتها والسلام عليكم وأضرب منطقة مقطع عليكم السلام وأكون جوجا هذا after 2 minutes السلام عليكم وريا مركزات هدي أنا أفير دير تأسيده يدوكله مركزات هنكو جلايا مركزات حسلا طلعوا ما لها وحلا جاية با إنترنت كان حقي سكفي عنينه واحد أديكوا قرطون أركينين بس أنت كغات وعليكم السلام هذا هو مركز الدحات وجوجتر السلام عليكم يا عمر جنولة ما صاقله ماشي وعليكم السلام هذا السلام عليكم مركز داشو أدمر مر ولا بلقوك هذه بلقوك هذه ويرى دبعيو حقا ويرى استرم موجسيو حتى مكتو قفك اللوقاتين كاللوجيكا وحس ليه قفك ويرى مشكل شيء أما واضح هذا قفك هو بني آدم نجح مليار ما هي قفك مسؤول قدري كرا أو سولو آدي كرا أو وحبو هول بو خمسة كرا أما أصلا هول هذا السلام عليكم لصوت أنت قفك هو شو كل إحدى ده الناكس تبحى والله ما سلامت إسلام كان نجح قادد صوتان قارا يحاول دقراي إلهي بار أسا إلهي بار رواية وريال اللي هي اللي هي صوتان قاضي سلامت صوتان صونيكي قاضي أكلها وعليكم السلام صدقي طبعا جران جوجاي وانا قاضوها يا ولين دياران وحي ما بس بورنك مركا وحوايه محل دها بابورك ددك بابورك مركاد ودود بابورك مركاد ودو aad meesha rabtay inaad ka leexato aad ilowdo kale ya oo aad isfahamto soo baabuurka ma soo kala jiireynayso sidii camal aan labadiina isla jiiroonaysan markaasaad haddaad yara kululaatana leedahay war sootaan maanta oo dhan kaa qaadayna bala ku qaaday maanta oo dhan basalaanta waa kaa qaadayna muraadkaaga ka hadal haddii kalena أد إسكا مسكين إسكا تهنا أنا واقع قاعدة ما أنت نسلامت السلام عليكم مركز عليكم السلام ما بدها أنا محاد محية ترى محا ترى محا إيه هندده ولا على الربا إلا أنا اسم مسكين السور ربا الله مركز اللي أسمع على ذي الأذى واسدة ما عليه هذا اسم مسكين السو مرجع هبرتها راسه كتوساي فهذا إسلامك صلاته ولا قاعدة وحاسنا نمن كواي والله أنا قدرت حتى رجعوا إسكاد أو هذا الدش كسارة ميه لكن وحيابها اللي قل الدنيا وين لا سكشاقو ورا عليك هرتا يائس مقدم بابا من فابلو هرتا عليك يائس سلام كل أدوجي متهد الله نحرست مرة ودنت نيني قبل متهد ما بالله قبابا ولا الكي متهد واي قديريها أمريكا كندا ولا عليه جيران درس كيجا متهد هرتا هذا كسوق شعبارك وقدعه هل كاسنت كلا قبسنا هذه أصلا يا حالك أدنك حمانا ماشي السوشيال ميديا لوجو تلاقي إلا إسكو برتو إلا إسك فائدة
إن محي هتوني وحون لغو كلا كورسدا يا كا إلهي باري واي وحون إن لغو كلا كورسدا يا ما جرتو هالك بس إلا ميريسو واي مالين تاسد كاس شبت كل جنيسا وليبا وكسي عنانا يا أوكي وحيابها عجيب كأه waxaa kamid ah meel baad ka bixinaysaa macnaha social media ay kala hadlaan waxyaabaha aad u la yaabay qof adiga friends aad tihiin friendska waa kala jiraan ogaada aniga kollay friendska saddex ay kala yihiin dadka friendska oo aan saaxiibada ku nahay social media saddex qaybood ay kala yihiin ma fahamtay saddexda qaybood ay kala yihiin waxa weeye qayb waxa weeye qayb aan saaxiibanahay in person aan u aqaan face to face u aqaan is aragnay heblaaye hebel dhihi karo hebelow hebel dhihi karo aan garanayo qof ahaan garanayo shaqo naga dhaxayso si uun wadooyinkeenu isu soo gudbeen qayb waxa waaye qayb aan social media wax badan saaxiib ku nahay oo sida qof ceesho milix noqonay oo sida qof aqaan aan waxba ii dhaamin ya qaybna waxa waa ciise riyoole kuwan ka hadlaayad qayb ka taashur muduloodna meesha looga hadlo waaya masa ana muduloodnimo iga urine mudulood waa ahay laakiin shirkooda kama hadlo waayo hadaa dhageyso waxaan haayo ma aragtay ama anta la baqashan noqdaan ama ha fiicnaadan haday kala la bax foorida ganjalo kafta la socdo qofki xataa si xun u hadlo waa la kafta maale bas hor la u baxa wixii riyoole lagu yiri qabtaay ka bax meesha okay waxa dhacday marka qayb waxa waa qayb aan u maleeyo in aan isgaranayno laakiin aan isgaranaynin hasa ahaatee aan ceesho milix ku noqono oo aan wax badan ma aragtay meelahan ma aragtay ku saaxiib ahayn qaybka saddexaad waxa waa qayb aanan ba isgaranaynin wax badan aan saaxiib ahayn oo malaha saaxiib igu soo hadda dhow igu soo beera ah laakiin aan iska ixtiraamo ay tahay ani marka waxaan rabaa yaabka dhinaca dumarkana inaan ka hadlaan rabaa dhinaca raggana inaan ka hadlo dumar waxaa jira dadka dulmiya okay ragga horta soo dhamayna qof aadan garanayn oo weliga arkin wuxuu ku weydiino waraysi talk ma aragto oo fuulahow ka qaada oo 220 iyo 2 su'aalaha ka qaada waana isku ka xija neefsama joogsi ma leh hakad ma leh markaas uu ku leeyahay salaamu calaykum wa calaykum asalaam abaya ii waran xagga degantaa markaas adi marka hadaa iska quman tahay oo markaas aanay ma aragtay oo kafeego ka wareerin subaxa ingiriis kan daganaha ingiriiska ma dagantahay maxay ahay toonay maxaas baa tahay markaas maya waxa hadaa sida aamino kale iska tahay horuujood iska tahay maya xaas mihiyaad leedahay halkaas ay hadara kaaga bilaabatay waxa walaa ma sheekaysanaa maya sheekaysamayna abo macaan hor la iskaga gudub maya waxa weeye marka damba fiirinay sawirkiisa mase hadaad fiiriso waa ku yara sarxno ma aragtay qalinkayga ka weyn qortiisa qalinkayga weyn ya awraawa qalinkayga antu saala ku bixiya qalinkayga iyo qortiisa wallahi qortiisa qalinkayga weyn markaas aad intaad naxrad waxa satalo ma wiil uu dhalo meesha saartaya anigu uu dhalo oo meesha saartaya ani waxaan ka yaabay energy badana nimankan naagaha meeshan ku jira dhul inay shukaansadaan raba ani meeqa waxa qabta meeqa geeda qabta حتى بقلنا غير شكانسته هاو سأقول قيبني إلهي باروا عاوة ما هي وريه ميه عاوة وحا هي قبر ناك سوماليدو عادية هوية سوماليدو عادية أيه سوماليدو عادية حدان دونانا قبر سوماليدو عادية سو ماذا قرر عاوة حوا رونا لسكو شيغا كان برنامج دي وحاجة معه اسك قصر اسك كفتم واي عاوة سر عنق يرى سركيسة يا قلنك أنا وحكو قرط أو سركيسة يا قلنك أنا وحكو قرط أو قلنك وين هاي وحوربا إلا قبائية إنك اللي له أقعده هو يا معانا وأديك بحالكي مكوسة دلالنا وراك أصلا محاكو قلي يا عنق هذا إسكت هاي مسك سكرت ده مسك صبر بارت ده إلهي بار واي ما جرت أوكي نين قضايا أكو سو قلاي هورتا نمانك عربها جوجا إقرأ هذا ولا والله أو بالله أو طلعه وسقاطه أو عشاء صوت كذا أو وسا يدورني مرة بإنان محيه هيتوني أن ما إجاها إنان ذكر حمينا ما إجا لكن نمانك Soomaaliyeed ee walaalaheenna ee dhiigeenna ah ee social media ku jira waxa uu aqli xun ku carabaha jooga soo carab u ag taagnay oo cigaal u fiirsayay
oo maxay ahayd toonay naaga la bilbilaayo u soo joogay ana waxaan maqlay la idin sheega oo carab ka maqlay ma ogta meel cariiri hadaa u gasho ku bilbilaaya naaga la bilbilaayo la soo joogay minuu rabana wax ka soo bilbilay oo ku soo gala salaam alaykum salaam alaykum wa alaykum asalaam horta xataa codkiis aad ma maqlayso salaam alaykum tasuu u qoraay ka fahmaysa inuu darban yahay salaam alaykum qaabka u qoraay ka fahmay salaam alaykum هاي وعليكم السلام markaas wuxuu ku leeyahay ay waran fiican tahay oo afar carabina waa iska soo hormaray ana carabi ma aqaan ilaahay baar waa carabi ma ka saayibaan ani absolutely carabi ma aqaan ana waxa Soomaaliya aqaana oo luqadayda hooyo u dhashay luqadayda labaad Ingiriis waa 20 sano dadkan la noolahay ya luqadayda saddexaad Talyaani oo carabi ma ka saayiba afar Faransiisna understandable waa fahmaya marka salaam alaykum ku yira horta shukaansigooda xataa canaan waa ku carabaha joog waryaa ana run idin sheegayo gabdho badan run idin sheega markaas hoosta xay ugu soo qortay baq iska xishada waryaa 3 sano hadloo haya 3 sano ama microphone hadloo haya aba run la idin sheega ya carabti naagaha bilbilaysay marna buufihaysay saa ula joogteen aad idinkana dabeecada idinka xumaata markaas dhaqanka Soomaaliyeed ka tagtaan markaas dhaqanka ninka Soomaaliyeed lagu yaqaan ka tagtaan markaas xishoodka ninka Soomaaliyeed lagu yaqaan ka tagtaan markaas wax walba ka tagtaan markaas dam war dam mar raba anaga bartaa maxaan dhahay ya habaaraad qabtaay meel laga fariiso qofka Soomaaliga gabadha Soomaaliga meel alla iyo meesha joogto Soomaali waay waryaa timaheeda xataa haday banaan yihiin oo ay tahay gabadh timaha banaysatay adiga xoog ma ku lihid Soomaali way gabar Soomaaliyeed ahaan u qadari adima jannada iyo naarta ay furaheeda haayo yaa ku dhiibaad isha ya waxa maqli jiro marka yara on wacdigeeda iyo waxa dhagaysan jira naarta dadka waxa ku rida oo kuna celceliya malag oo cawir oo isha la ilaa laaya ariga markay ciyaalka ilmanimo wajiba ma taa ku fikir jira isha laaya dhinaceed hadii laga wareegsadan yaa wareegsan kala asaaba dadka xukumay kuwaan sidii malag la sheegi jiray marka yara amal ay ku soo galayaan ee wada dhaqmayaan gabigood wariya gabdhaha Soomaaliyeed ixtiraam ay ugu leeyihiin ixtiraam ay idinku leeyihiin xagga isaar hooyo xagga isaar wiilkaygu waa iga naxay 10 labaad oo ikeen ya gabdhaha Soomaaliyeed gabar kasta oo Soomaali waay awada haydar ina furtin awada ugu talagal out of program waay barnaamijyadeedu hore ma aha kan waa iska sheekaysanayna caaw runta isu sheegan because marka television ka hadlaayo waxyaabo aan ka hadli karnaa jiro soo gali karin marka xataa aan ka hadlaayo barnaamijyada kale waxyaabo aan helin karin soo gali karin kuwaas inta ku sheegaya caawada okay maxaa ii dhiman nimanka oo aan waxba hubsanayda waraa hadii la rabo waa la iqaba adduunka dhan nin banaago arooso shubay u taala asna shubay u yaala hadii la rabo waaba la iqabaaba hadii la rabo waaba la iqaba ya afkaaga wuxuu ka raadinaa ma la iqaba hadaa dhihi weysana malagaaga galay hadaa dhaxda waa ka sii daran tahay hadaadan dhihin waa ka sii daran tahay war qasab naagaha ma kulihidin naagahan meelahan ku jiro waa shaqaystaa waa xoogsadaan ya qaar waaba old fashion sidoo kale ninka inay hor fariistaan ay rabaan oo arkaan oo fiiriyaan cijihiisa wasaqmiya afkiisa xalay muufado cunama ku jirto mashiira shaatigiisa kilkalaha ma ka madow yahay kabihiisa jaqfamiya mase waa soo luujitaysan yihiin all the fashion people like me waxa waaye waa isfiirinaya waxa waaye ituso itaabsi waa anaka waxeena dadkan single mothers-ka oo maamooyinka ha ku sirmina dad culus waaye ana caawa ka wakiila wax alla iyo wixii gabadh Europe iyo America kuna oo single mom caawa ana u hadlaaya we are not that easy gas manhin okay hadaa gardaysatay aniga bargaan yaraayo idin koraya idin kaga sheekayna
berigaan yaraa oo aan koraayay oo aan ama adigu caruurnimada markaan ka soo baxo iran noqda iyo iskuulada dhiganayna iyo kadib iskuulka dhamayna iyo shaqada qaranka iyo ninka garka leh ninka kale wuu ka fiicnaa wuu ka ixtiraam badnaa ninka cimaamada halkaan u saaran tahana markaan magaalada ku soo daahno oon ka soo degano gaadiidka dadweynaha oon gurigeena u soconno ninkaas hadduu cimaamad wato macaawis wato tusbax wato waa ka daba carabi jirnay asagaan tiigsan jirnay si kan xumo ciyaala suuqa oo ganaf leh inta nooga daba yimaado oona noo faduulin waa la aamini jiray ninka wata macaawista ninka wata cimaamada ya ninka wata maxay ahaato tusbaxa waa la aamini jiray aaminkii hadda waxaa ka qaaday asoo gar leh oo qanshiiro weyn ood u qabto muxuu ahay tom and jerry mukulaalka tom ahay aad u malayso oo masawirkiisa inta saaran oo buux markaasaad waxaad isleedahay soo madaaya way igu soo dayn botafoorigan markaasoo haddana ku handadaa intuu kaa dhex handada wallaahi oo bilaahi oo talahay qaarkood markay ku handadayaan masawirkooda markaa fiirisid aaba ka cabsahaysaaba inta le ama kaaga soo baxa ku dhakaarayayaa isleedahay ya ee ka orod bisinkee ma garatay marka horta ragga carabaha joogow istoosiya carab haddaa joogtina dadka ilaahay uga dhowdihiin ma aha ilaahay subxaana watacaala qofka bini aadamka gabar ha ahaato wiil ha ahaado qof weyn ha ahaato qof yar ha ahaato xiriirkiisa qaab kale loola xiriidha salaada qofka markay tukanayso ilaahay asaga xiriirow haay ya ilaaha iyo asaga xiriirow haay laakiin adaa qanshiiro weyn oo shuruf badan oo dhigid badan oo garshacaacifo war garka qurux waaye wallaahi garka qurux waaye laakiin wuxuu qurux yahay mataqaanaa marka la simo garka in la simo oo la simo oo la hagaajiyo ama ha cadaado ama ha gaduudnaado ama ha madoobaado garkaaga laakiin garkaagas laakiin adoo shacaacuf leh oo sidii toom camal qanshiiradu ku weyn yihiin inaad gabdhaha meesha ugu soo bootayso oo aad ku handanto war gabadhaydoo kaleeto 17 jirka handad laakiin aniga islaanta weyna ee isku dayda noocaygoo kaleeto inaad handado oo soo gubtay oo soo gamaaray oo ilmo soo korsaday ya waa kuga ceeb runtii marka gabadhahu waa gabdho Soomaaliyeed had u ixtiraama ya mid ka gabar walba halkaan ku jirtaa gabdho badan halkaan shaqo ugu jiraan business ku sameysana meesha noona iskaarsa ma aha ku jiridana social media iskaarsa ma aha ya mid kaleeto idinka animadan ka yaabanaha waxa waa aan hadii nin ahaa lahay ka dhigbanina ahay how many naag energy u haya meeqanaagoda energy u haya ya tii meeshaan soo taagan assalaamu calaykum wa fiicanta malaga qabaa war waxaas hay tahay alla magayo iyo quraanka ya waxaas hay tahay isku xishooda oo isku yaaba oo maxay ahayd toonay dumar waa la raadsadaa oo maxay toon dumarkuna rag waa raadsadaan oo problem male gabadha xataa ninkay ku qanacdo inay la hadasho oo raadsato ya wax leeso oo ku jaban malaha laakiin damdanta iyo indha cadayska iyo war meeshaan baadiye maaya meesha geedaha la iska daba wareegsanayo ma dadka waa ilbixin xataa kii baadiye ka imaad oo soo beled la soo marsiinin qurbahan iyo meelahan imaaday qaladaad ka fahamsantiin gabdhaha waxa kale oo kaaga daro single mother caawa idin faahfaahinaya caawa waxaan rabaa wixii run oo igu jira inaan idin sheego oo barnaamijyada kala raaci karo single mama idin sheegaya naag aqli leh oo gilgilata oo nafteeda u naxaysa oo dhulka in lagu jiida aan rabin horta single mama noqoto gabar baqaysa oo maskiinada oo madaxa uga qunfulan tahay haddii lagu furo waa kugu dhamaata single mama noqoto waa adkaysataa ma xuma adkaysugo sabarku ma xumo waa wax wanaagsan way adkaysataa gabadhaas wax baa lagu sameeyaa way turtaa way joogtaa laakiin waxaad ogaataan inteena single mamka mid walbaba maalinay gabadhaas oo kala ahayd oo adkaysanaysa
oo isyara gaabinays oo ay islahayd furiinka ilaa ayaga furiinka afkeeda kuma jiro ninka hadday nacdo fak fandhal qoraya waa ku furay bax foorida ganjeel lama dhigi karto ya laakiin asagu kibir iyo ku doondoonna gabadha waa u furi karaa huriweyto iyo wax u huri waayana ninka raggaha wax waa u furi karaa dalqadda afkiisaa la geliya saas la ajligeed waxaana afkiisa loo geliyey waxa waaye ragga ayaa ka wanaagsan dumarka ma ahee dadkan kuwan aaminsan ee damdamlehe aaminsan dumarka waa nuxuus aniga nuxuus mi wallaahi 100 qanshir weyn aan ka fiicanahay aniga aamina waan is ogaan aan ka fiicanahay ya waxaa waaye gabadhan howlaha loo dhiibay howla ka duwan adiga lagu dhiibay ninka ragga gabadha howlaha loo dhiibay mogt ilaahay wax waa doorowsi ee gabadhu buuxiso ninkii ragga ahaana adiga ragga ana doorow ku sii aad buuxiso labadiina baan isku door ahayn marka laba shaqo kala duwan ayaa leedin dhiibay shaqada marka gabadha loo dhiibay iyo shaqada adiga taada ah way kala duwan yihiin sida la ajligeed ayaa gabadha afkeeda dalaaqada loo gelinin adiga waxa lagu geliyay nin yahow caada ka ma timaado caadada markay gabdhaha ka imaanayso intaynan imaanin tan ugu yar waa tan ugu yar 3 maalmood ay sakaraad sii noqotay si xanuunsataa mid dhifa oo ilaahay u gargaara maahay ta kala ugu badanna 10 maalmood ayay sii sakaraada oo sii xanuunsataa hadda waa intaan caadada imaan caadadu markay timaado tan ugu yar 5 maalmood ay ka socotaa tan ugu badanna waxay ka socotaa 7 maalmood ama 6 maalmood adi caada ma kugu dhacdo oo nino caada ma kugu dhacdo caadadaas gabadha markay ku dhacayso psychologically way isbedelaysaa hormoneska jirkeeda waa isbedelaya maskaxdeedu waxay soo daynaysaa dhacaan ka duwan dhacaanada markaan ay caadada qabin ay soo dayso oo ay fariimaha ku gaarsiiso jirka amaradana jirka ku siiso adi intaas ma kugu dhacdo okay waa la isguursaday waa la isu tagay ilma iyo uxanta iyo manadiya isqabsata ilma abuurmay ilma marka abuurmo adiga 5 seconds 5 minutes oo ay biyaha alla kuugu talagala ka baxayaan oo gabadhan gudaheeda ay galayaan ilma galeenkeeda u gudbayaan oo lulumadaadii ay uxanteeda raadsanayso ka baxdina dhag isqabsanayaan ilma noqonayaan bas oo raaxo kaaga baxay raaxo adoo raaxaysanaya kaaga baxay ya ayaa maxay ahaatoonay ayaa carruurta ku dhashaa haddaad cali dhashay haddaad caasho dhashay haddaad faadimo dhashay haddaad 12 dhashay haddaad 5 dhashay haddaad gabadhaa 8 ku dhashay adoo raaxaysanaya dhashaa gabadhaani hadday xataa raaxaysatay ya oo markaas ay raaxaysatay raaxadii waa laga goynaya waa walacaysa 4 bilood ilaa ay ka dhamaato uurkeeda waa mantagaysa qaar falay baa lagu suraa gabdhaha ya adi uur ma yeelataa ma walacdaa oo ninow uur ma yeelataa ma walacdaa adiga ma mantagtaa ma diisnaysaa darantaa ma wareertaa dhulkay cirka ma kula guuraan ma carataa oo cara uurka calooshaada ilmaha ku beermaaya daraadood cara ma kaa timaadaa ma jaha wareertaa jahda ma kaa dhuntaa urtu ma ku dhibtaa cunadu ma ku dhibtaa abataydku ma kaa xirmaan waa maya shaqadaas gabadha loo diro adiga lagu ma dirin ilaahay hadoo og yahay inaad ka soo baxayso adoo ku diri lahay inaad ka soo bixi karin la ogaay ilaahay maxay la tahay inuu dacna ira gabadha uur hayeelato dacda kalena ninka la isu kaltamo maxay la tahay ee subhanahu wa ta'ala gacantiisu way weyn tahay waxba lama yeelin laakiin gabadhiya intaas dusha laga saaray ya adigana waxa lagu yiri utur u tabi dhaqo masruuf si marasho si meherkeedana mulqmulqa gelinin gabadhaas u naxariiso hadalla macaan ku dhaha lagu dhahay inti laguguma haysto inti markii laga waayo dhul shisheeye la yimid anaka balanbalayna iska daba buuqayna iska daba calaacalayna wadan kaani naga soo duumay dad kor iyo hoos u baaba'ay ah halka markaa imaano ya shalay hadii gabadhan markay kugu kacdo hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed iyo eedooyinkeed ay dhinac joogan hadda ma dhinac joogan
strange people oo aanay garanaynin hebel iyo heblaayo dhahaynin ee la degan tahay ya furiinka waa imaana single motherna waa noqone mana aha inaad ku caydo single mom naag iska adag oo geesiyad ah oo og haddii la furo inay ilmahaas gaalada dhexdeeda inta dhexda u xirato maaragta ay ilmaheeda korsan kartaa single mom noqoto most of you single moms ku idinka fiican yihiin kuwiina nimanka ana run idin sheegay ya idinka fiican yihiin idinka karti badan yihiin waa la furayaa markaas inta jafjafato oo ilmaheeda korsato ya oo ay wajiga iyo indhaha fiishka ka ilaaliso idinka naagay furaa qaarkiin iyo fiish la jidka socdaan ya marka single momka aad qaladka ka fahamsantahay horta waa nooca waa gabadh halkii aad banaysay iyo halkeediiba isku buuxisay hadday xataa buuxin kari weydo isku dayda aad liste she tried way isku dayday inay buuxisay isku dayday ta kala sheeka idin haya ayda ayaa kaga sheekayna horta Yurub wax la yiraahdo cayr waa laga joojiyay ina ogtiin in kala ma aqaan qaar arkay wali cayr qaadata cayr nin iyo naag cayr wax qaata male ma qaata cayr yaa qaata ma taqaana kuwa jiiska ah oo runta u maarta naafada waa ama ayaka naafa ah naafa iska dhigaya cayda qaata iyo qofka xanuun xaq alla ku soo baxay oo xanuun xaq alla ku soo baxay oo shaqeyn kara halka cayr waa la dhaaf gabdhaha Soomaaliyeed waa shaqeystaan wadanka sheeka idin haya indhaha isku haysin ana idin sheegay caaw waa shaqeystaan gabdhaha Soomaaliyeed kuwa aqoonta leh qaar loo yaraahan qabna qaar dhaqaatiiraan qabna intaas oo kalkaalisa caafimaadaan qabna intaas oo kalkaalisada caafimaad si kalkaalisa oo dadka waayeelada ah oo care house ku jira iyo ku guryaha loogu taga haysan qabna oo gabdhaha oo Soomaali ah oo uniformata ya oo 10 saac bar habeenimo ama maxay ahatoon 4:30 in the morning ama shanta subaxnimo shaqo aadayaan qabnaa waxaan qabnaa maxay ahatoon intaas oo gabdha ah oo wariyayaal waxaan qabnaa intaas oo gabdha ah oo maxay ahatoon xafiisyada kale ee dawladda ka shaqeeyo waxaan qabnaa intaas oo gabdha oo counselada ka shaqeeyo iyo intaas oo wiil oo counselada ka shaqeeyo waxaan qabnaa intaas oo wiil iyo intaas oo gabdho oo tarjubaana ah tarjubaanka laba waay mid waxa waaye wait to wait qofka hadalka afkiisa soo baxo oo hore Ingiriis ka dhiga kuwaas waxay ka shaqeeyaan maxkamadaha iskuulada marka qofka iskuulka u baahan yahay dhaqaatiirta ay la shaqeeyaan ya qaarna waxa waaye waxay ku shaqeeyaan qoraalada ay tarjumaan Soomaali ay tarjunta Soomaaliga indaha isku haysaan waa shaqeystaan hadda cayr wax la yiraahdo damqadan waa laga joojiyay cayr ma jirto ya kuwa bililaqada ku nool ee maxay ahatoon hebelada ina adeerkaya meeshaas wax ka ashaxaadka u doonta oo dadka social media ka caayaya wiilasha iyo gabdhaha ragga iyo dumarka qurbaha joojiya cayda waxa ma ogdiina qof cayr qaadata meesha ma leh nimankii Soomaaliyeed ya kala barkood tagaasay wadaan waa self employed kala barkood kala watchman iswaay waxay ilaaliyaan dhismayaasha waaweyn ay ilaaliyaan ya qaarna habeenkii shaqeeyaan qaarna maalintii shaqeystaan xafiisyada ka shaqeeyaan maxay to counselada degmooyinka hoose oo dawladaha hoose hadda dawladda hoose kale dawladda hoose oo kale waxa waaye hadda like dawladaheena hoose wadanka oo kale hal meel dawlad hoose inta saas ma aha inta xaafad kasta dawlad hoose si leedahay idoo dawladda hoose guud oo weyn ay jirto oo gobolka ama degmadaas xaafad kasta dawlad hoose leedahay waxaan qabnaa intaas oo gabdhood oo Soomaaliya intaas oo wiil oo ah civil maxay ahayd services oo dawladda u shaqeeya qabnaa waxaan qabnaa intaas oo ah maxay MPs ah mudanayaal baarlamaan oo Soomaaliya qabnaa indaha isku haysid waxaan qabnaa intaas oo security officer ka laba waay waa kala darajo sareeya supervisor qabnaa oo meesha dhan security-keeda ay ka xukumayo oo lagu aaminayo billions hay'ad ay taala qabnaa cayraa qaadateen cayraa la qaata waxaas ma jirto dadka qurbaha jooga waa shaqeystaan waana inay ogaataan inay shaqeystaan America horta iska badaa ayada America too much
qofaan shaqaysan waxa waaye waa yar tahay meel muujuuji fakartad yurubna saasoo kaleeto waxaan qabnaa intaasoo gabdhood oo iyaga dukaaman ay leeyihiin gadanayaan qabnaa ya meel walba oo aan degannahay intaasoo dukaan oo business oo Soomaali leedahay qabnaa intaasoo nin oo business man ahaan qabnaa intaas dad oo mall lahaan qabnaa mall iska maartay dukaamanka meelaha oo waaweyn oo dukaamanka badan ku yaalaan lahaan qabnaa ya oo Soomaali ownad ah Soomaali leedahay qabnaa waxaan qabnaa intaas oo maxay ahayd toonay ah alaabada soo dejiya export iyo import sameeyaan qabnaa indhaha isku haysaan ya malaha afarta soo habawday oo bilaa camalka ahaa ama halkan ku ahaa seegseega ama caruurahooda iyo waxooda soo dayacay ya oo idinka idin imaadeen oo Soomaaliya intee jawcist habaar kugu dhacay kale waxaana mahalahan uga arko waaya ya ayaa maxay ahayd toonay ayaa ma habeen idin sheegay waxaan rabaa inaan wax yar idin kaga taabto dadka wadanka imaada oo qaarna aad abustaan oo aad tiraadaan waa diaspora ya oo waa diaspora gabdho waxaan qabnaa black cab wado taksiga madow ee dawladda ee jaamacadda looga soo baxo 4 sano aad baranaysaa wada walba magaalada ku taala iyo luuq kasta iyo 4 sano jaamacad iyo aso isku mid waa taksiga madow black cab gabdho qaar wada iyo wiilal badan oo anaka Soomaaliya oo nimana aan la qabnaa ya ma fahamtay waxa la hadlayaa qolayaha wadanka gudihiisa jooga oo isu haysta inay maxay ahayd toonay ay dadka dhan cayr qaataan u haysta nooc ceer ma la qaato masha tax payers ana cashuurta wadankan aan bixinaa ya cashuurta wadankan ayaan bixinaa qayb waxaan cashuurta halka cilad oo leenahay waxa ma isku duubnin dad isku duuban hadaa ahaan lahayn maanta oo aan qurbahan dadkan joog dad isku duuban ahaan lahayn maanta wax weyn aan qabsan karin lahayn wadankan ya taasna waa habaarka aan kala nimid wadanka waay ee habaarka Soomaalinimada sanjiga Soomaalinimada habaar caadiya oo isku dhagan jiro oo xanjacan ugu dhagan oo isku fuji karin oo kala qaybsanaan ma midaysnayn laakiin wadankan hadaan midaysanahay awood badan aan ku leenahay Yurub iyo America I think America inay xoogaana yara dhaanto laakiin wadankan hadaan ku midaysanahay maanta awood badan aan ku leenahay hadaan midaysnaan lahayn laakiin dad shaqeeyana dad canshuur bixiyana qaarkood waxay leeyihiin day own companies ay leeyihiin company ay ka leeyihiin ana company aan leeyahay 4 sano company aan leeyahay dawladda aniga wax xisaabtana canshuurta xilligeeda all the Soomaalida kala companies kala saasoo kale taba xilliga canshuurta la gaaro waa lagu xisaabtamaa inta canshuur lacagta ku soo gashay iyo canshuurta laga jaray wax isku dhigma waay wixii isku dhigma ku soo gal canshuurtada laga jaraa tax bixna tax canshuur bixna wadankan awoodaan ku leenahay lacagta doonariska oo UK ay wadanku u celiso qaybtooda ana ka bixina annaga muwaadiniin Soomaaliya bixinay Soomaalida hadda guryaha wadankan ku yeelanayso waa badan yihiin waa soo bateen guryaha gadanay ya wax badan wadankan ka qabsanay dhaqaatiira leena waxa leena kalkaal saxaf inta soo sheego dhan aan leena ya mudanayaal baarlamaan aan leena hadaanan waliba sii qaybin oo annaga aanan ahaan lahayn dad midaysan hadaa ahaan lahayn awood waxa lahaan lahayn kala araga ya marka saas ogaada ayr lama qaato meeshan waa la shaqeystaa wadanka Ingiriiskana canshuurtaan bixinaa we are ya tax payers ana saas ogaada qof marka oo qurbaha jooga marka uu soo hadlo oo ku shamuumaysin kuwiina wadanka jooga stop jooji ha ku shamuumina lacagta doonarka oo idinka la idin keenay ay bixiyaan dadka ciyaar mood ya
laakiin midnimo la'aan aan hayso midnimo la'aan hadda UK oo kale intaasaan ma lihin xafiis jaalideed ma lihin qunsulna haba sheeginba safiirna ha sheegin kii la soo magacaabo gadaalo u cararaa ya because wax ka bixinaya ma lehe qarashkii iyo wuxuu wadan ku deganaan lahaa wuxuu xafiis ku furan lahaa wax ka bixinaya ma leh si uu yara usii kala yara daadsana uma xumin dad wadankoodii ka burburay oo from scratch ka soo bilaabayo sagxadda ka soo bilaabayo uma xumin maaha wax kasta in la dayrsado maaha oo la dayriyo maaha oo sidan aan la dhaho ma aha ya wadankaaga markuu burburo oo wax walbaba aad sagxadda ka soo bilaabayso way dhib badan tahay inaad meel wanaagsan soo gaarsiiso muddo yaroo kooban gudaheed laakiin Soomaalida shakhsiyan isu dhisay ayaa badan maaha kaliya inaan dhinaca negative-ka kaliya ka hadalna ma aha waxaan leenahay positive wadamadan Yurub ilmaha aan ku dhalnay ya waa laba dhaqanlayaal ilmihii guri fiican ka yimid wallahi waa laba dhaqanlayaal ayagoo af Soomaaliga si fiican u aqoon markay Soomaalinimo ku gartaan ay ku salaamayaan abaryo ay ku dhahayaan banaanka ugu arkaan Soomaalinimo ku aqoonsanayaan adii ma dhalin habartiis ma taqaan adoogis ma taqaan laakiin jismigaaga iyo appearance-gaaga isa u muuqato in Soomaalida u jeeda markaas ku salaamaya wiil iyo gabadh ku ismail garaynayaan qaar waa ku salaamayaan qaar waa ku imaanayaan oo ku xishmeynayaan laba dhaqanlayaal waa ilmaha wadankan aan ku dhalnay in yar oo inta takada si ka noqotay xabsiyada gala maahe ilmo badan oo wax bartaa jooga wadanka inay u soo noqdaan haddaad waraabanimada iska dhaafaysin ana run idin sheegaye waraabanimada haddaad iska dhaafaysin ood argagixisanimada iska dhaafaysin oo dilka iyo qaraxa aad iska dhaafaysin runta laydin sheegaya caawa ilmo badan oo fiican oo wadanka wuxuu tar lahaayeen qabnaa oo anaka aan dhalno oo weligood wadankooda arkin ya weligoodna aan wadankooda arkin oo rabaan wadankooda inay intay tagaan niyad u haayaan inay wadankooda wax ka bedelaan rabaan hatta dadka waaweyn hadday ay noqdeen careless noqdeen ama dad lagu khasaaray ay noqdeen kuwii anaka aan dhalno ogaada mar walba jismiga Soomaaliga ka yihiin ilaahu yaaf Soomaali ka san ilaahu yaa dhaqan ka san ilaahu yaa waxa ka san laakiin guri islaamay ka soo baxeen oo diinta lagu barbaarinay quraanka waxa laga yaabaa sida canuga gudaha wadanka jooga oo wadankiisa dhex jooga u xafidsan inuu u xafidsanay laakiin waa lagu dadaalay saas u ogaada marka qaliyaha oo gudaha joogan la hadlaya caawa idinka la idin baraya dadka dibadda jooga haas u ogaada mid soo firxaday ee halkan maaragtay asoo bilaa macna ah inta halkaas yimid ina adeero boos ii dhiib xildhibaaniga ya lacagta naagtiisa ayuu tada ku soo gashay intuu kale meelaha ka soo qaaday intuu kale meelaha kala soo gooyay inta keenay boos ku gatay maaha in lagu judge gareeyo maaha haddii aan nahay in lagu xukumo maaha haddii aan nahay maxay dadka qurba joogta ah sharaf lena sharaf waa shaqaysanaa cashuurna waa bixinaa ya sharaf lena odayaal shuruf leh oo suunka cagaarnay u xiran yahay oo alfalaaxa taa wadano oo maxay ahaatonay maxaawisa la xirano oo gudahooda markii la fiiriyo geedkooda la arkaayo oo hogaamiye dhaqameedye lacag nin siiyay ya tug dhala aha meeshan aan waxba ku ahayn nimanka idin imaado dhan waxba meeshan kuma aha run idin sheega ana caaw run idin sheegayo believe me hada hal kalaam been sheegay cadaab ya wax ay ku yihiin malaha injineer baan aha wuxuu yahay male jaamacada ka baxday warqadeedii keen dhaha telefoon soo diray jaamacada soo hubiya bal hada injineer yihiin ma aha they are not ya loser saadin imaada dadka wadanka imaada oo qurba joogta oo qasaayo oo wadanka dadka ilmihii wadanka ku dhashay ee dhalinyaradii wadanka ay xabada ku dhex kortana boosaska isku balaariyo ka buuxiye ya isku balaariye ka buuxiye waxay ahayd in kuwaas la siiyo dadka wadanka u sabray ee wadanka intaas qubta iyo qacda joogta ee wax ku barta ee jaamacada kaga baxay ee waxba kaga sameeyay in waxay ahayd iyaga la siiyay ahayd boosaskaas ya kuwan inta ka tagay saayay waxba ma yahay half of them waxay ahaayeen incompetence naagahoodina gogasha xataa xooga tari waayaan markaas ay laba jawaan oo fikra ah
inta idin soo qaateen iyo inta soo daaweeyay inta laba bacood oo daawo ah iyo maxay dollar oo kaniiniya ay idin yimideen asaad boos ka gateenaad siiseen xildhibaannimo markaasaad waxaad leediin waa danka mow hagaaga xow hagaaga wax waalan iyo wax xanuunsan baad wax siiseene muxuu hagaagaya annaga dadkeena meeshaa nolosha ku haysto maba soo soconaba wadanka hadda wadanka hadduu dhismo wadankeena mugasaa imaahayna markaasna madaxnimo ma rabno waa shaqaysaynaa dukaamanaan furaynaa ya bacad lihiyaashayna aan gadanaynaa we don't need annaga madaxnimo markaas halkaan bay ku shaqaynayna markaas canshuur bixinayna soo ma kuwa idin imaaday oo gabdhaha yaryariiska ah maxay ahayd toonimada kubsadaan iyo mida uur ku inkiraan ka dhigaayo waa loseriskii qurbaha waay most of them they are a losers ya kuwa wax matarayaasha ahaa wadanka imaaday iyagana qasaayo yaan la nabin marka dowladnimadana ha nabina waxaagana ha nabina hoosta laga walaaqow haya waxaan wax ahayn aad ka dhigateen waxaaga koo kastoo howlgabe fiiri da'aa jirto oo lagu howlgabo wadankeena waa jiri jirto da'da jirto oo lagu howlgabo wadankan waxaa waaye dumarka waa la kordhiyay 60 ay ahayd 65 sano laga dhigay raggana waxay ahayd 65 sano 70 sano laga dhigay haddana waa sii joogi karta 70 markaad tahay waa howlgabi kartaa qurba joogta idinka idin imaahayo da'da howlgabkayba joogaanba nuga beeshana inta arursatina lada wadan waxa leedahay wadanka wuxuu hagaagu waay wadanka soo hagaaga idinka dad maskaxdiiba fariisatay oo beeshana geysateen meel walba ma hagaagay ya runta leedin sheegaya caawa runta leedin sheega afka ku soo taagan qurba joogta Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale dad sharaf leh oo shaqaysta waa warbal qiyaas wadan aadan waxba ka garanin dhaqankiisa aadan garanaynin afkiisa aadan garanaynin hebelaw aadan dhahaynin qofkii inta timid is dhistay iskuul aaday is soo dhistay ilmaheedii iskuul geysatay luuqadii wadanka baratay shaqaysatay qofkaasi miyaanu ahayn qof maxay ahayd toona karti leh ya qof karti leh miyaanu ahayn scratch ak soo bilowna anaga from scratch ak soo bilowna marka nimanka gudaha jooga ama kuwa carabaha jooga ee u haysta gabdhaha masaakiinta ee single maamiska ah ee wadankan jooga wadamadan jooga inay yihiin maxay ahayd toona shan xaba shan shilin no we are not manihin ya manihin ninkii ilmaha iga dhala aaba furay anaga mahano waaba kala tagnamaho ama usugaa i furay asaan ka safro ka hera mahano koo damdam leh oo bilaa macno ah oo bilaa qad ah oo maxay toon diyaarad xiin ka xumaaday ay yaa rabo isu soo toosiya marka dumarka la hadlaysaana ixtiraam kula hadla dhul gaalo joogtaaye waa lagu damdamay karaa adagana carabaad joogtaa ma ah runa idin sheega ixtiraam ajra level qofka oo dhaafi karin ajra naaka daashu kan sayso level ay kaartana kula socoto hatta qof business ku darsanayso level ay rabtaan kala socoto waxa la rabaa heer ajra meesha heer iyo hir waay dadka hirka la duuli karto la duul laakiin dacadays iyo qababa iyo maxay qabaa iyo qurba joogta iyo single motherska ma xas ma jiraan single motherska sharafay leeyihiin waa shaqaystaan ilmo ay korsadaan iskoolay u dirsadaan waxbay bartaan luuqaday bartaan waa is dhisaan gawaaridooda ay wataan waa shaqo tagaan dhulkaba aan soo dhaqne waxyaa soo suubina waxa ka fiicanna ma taqaana kuwa beenta idin sheegayo oo qurbaha ka yaacay oo incompetency ah oo naagahoodii inta niman fiican u noqon waayeen gogashiina waxba uga tari waayeen ilmahoodiina korsan waayeen inta idinka idin yimid iyo ko pension oo laba loor oo kaniiniya wata aad siisaan xilalka kuwaasan ka fiicannahay annaga single motherskeena single fatherskeena iyo nimankeena nala joogaba kuwaasan ka sharaf badannahay respect marka respect hatta maxaa sameeynaa ma taqaana ingiriiska hadda waxay sameeynaa waxa abaabulayna council u dhigma safaaradda iyo qunsuliyadda councilkaas waxaan la xisaabtami doonaa dawladda ingiriiska
lacagta ay wadanka siiso si u bixiso lacagtaas meeshay ku dambayso sababtu waxay tahay canshuurtaas kala baraan baxsanaa anaa bixina dadka bixiyaan ka mid nahay anaga canshuurta marka la siinayo wadanka oo lagu gubaayo ama musuq maasuq lagu samaynayo oo lagu buuxsanayo maxay aton mid walba oo baarso maran wata shandad maran wata intuu wadanka tago oo lacagta ku soo guranayo hadhow marka xilka ka daga oo la baxayo waxaas ma jiraa inaad ka baxdo accountability ya sameynayna canshuurta aan bixino naftirkeeda ka daba tago weynaaba shaka idin hayso wallahi ya kii inta taga oo inta ilmu ku dayaca xataa dhuunta baasadan ba qaadi maayo wala la xisaabtama hada wixii ka dambeeyo annaga dawladdan aan ka adagnahay dhalashada wadanka haysanaa nationality British nahay Soomaalina waan nahay weligeena Soomaaliya ahaanayna Soomaalinimadana ma isbedelayso waa shaqaysanaa canshuurta wadankan waxba ka bixina xaqa ugu leenahay dawladda consul ee hadaan ta sameysana inaan la xisaabtano waana la xisaabtamayna marka isliidida iska dhaafa ha isliidina ونو باهنتين وإذن باهن له ودنك هدا جوكتين معنينا ودنك إذن كالليدين ما نكب والنا وقت قربنا ما هينا وعربنا كان نقينا مركان نمات قف صوماليا أو نظيف أحمانتا أو ربا إنو شاتيجي صدورتنا يا وحين يا 4.5 كينا إيه قبيالة دين إيه قرن كينا ما بربا بينو دح قالوا إنه ما حكنا غدانا مربا تاس آمس أنا هاني dadkan halkan jooga kartida leh ee shaqaysta ma doonayaan qashinkaas inay ka mid noqdaan qashin kale oo inta ka taga oo inta waxba ku noqon waayo la qashinkaas ka mid noqonayo ya dumarka aan soo galaa markaan waxyaabaha cajiibka ah waxaan ku arkay gabar kala caayaysa hadda maaha gabar iska dhigto oo nin gabar iska dhigo gabar caaya ma gabar caaya naaya maxaa adiga gabadhan walaasha kaga duwan tahay od ku caayaysa ma meelayna iyadu ka dhalata adiga maxaa ku caaya way u caaya gabadha walaashaya ee dhiban hadday intay soo istaagto social media ay hadasho hadalkaas waxba ka keena iska ma hadlaan ha caayeen marka kama fiicnida qaara aniga waxay soo qoraan feerayn masawirkooda leen fiirshaana waana naago ilaahay baan ku dhaartay aniga feereyga saddexdood ay qabtaa aniga feereyga saddexdood iyada qabto waana caaytame waxa gabar kale ku cayda meesha ma yaalaan eedo ma garat gabar kale waxaad ku cayda meesha ma yaalaan ha caayin gabadha walaasha ha caayin don't insult your sister maxaa ku caaye maxaa taade mid kale dumarka qabiilba ma lahaba ma ogdiino qabiil ma laha حتى هذين القبيلة نمانكو حق قبيلة ديال بدك كسك جرى شوكا دمرك مركا رنت فير مركا روشك قبيلة جيش تاعت رنت مركا شوكا قبيلة ديش تاعت دمراو هايس عاينة ناك كلا دانت ملك اسكو ميدا وداتين كبيجين نمانكا سياسة قيبية إذا احترامان وقبلهن يباس كان أنسان إذن ديه مايان هبرتا ذا كتا إنكسو سومالدو سيكلا في عنتو إمين كلا أقادنا سيكلا في عنتو يا لكن قبر ولا شاية أما دبن أما دبشة أما وحكوا عيدا ماشي ما يلان يا ما حكوا عاية نوابا opposite sex وابا جنسي قبر كسو هرجو نين هدو قبر عاية إنك استنين إنو عاية تماما إيه لك أدام ناقة ما حناك لك عاية وحكوا يالا بعدك وحي تهاتا هدي الأروسة والله أروسة هدي الصفر والله صفرة هدي maxay tol xumay adna waa lagu xumeeyaa hoogaaga aqrsahe hoogaaga aad qarsado weysa maxaa waxay tame maxaa gabar walaasha u caaye way gabdhaha loo caaya barnaamijka naag caayaysa maxay taa oo Soomaaliyeed way ya hadaadan qofka wax wanaagsan dhihi karin afkaaga laba leeyra saar meel fariiso ha caaytamin kaama qoxay waxa ku soo haray wadaadada laba raba inaan dhaho wadaadada أنا ودن كذا عن كل شيء كوكرة وح كبرتي وداد ولا احترام يجرى احترام الهايم وداد ريرها لك على سفنا يا حدا رأركنا عنك وداد ربعين جنال لجو قالوا ضد إلا السود دلنا حدا نركنا وح بدنا إن حما بدنا نسوي شوكنا وحن ربعين أن ترجع وداد دا ويديه وحجر الرمو
faxshiya fadeexo iyo dhibaato noogu filan oo aadan ka hadlina waxaa ka mid ah ku gabood falka dumarka waxaa ka mid ah caruurta la kufsanayo waxaa ka mid ah musuq maasuqa dadka maamulada noo haya ee boorsooyinka ebarka inta wadanka la tago soo buuxsaaya kama hadashaan why kitaabka quraanka ah waa dhan yahay waxaa loo soo dejiyay in la isku xukumo macnaheedu waxa waa sharci completely ah maxaadan uga hadlaynaa ya saqajaanimada maxaadan uga hadlaynaa dhaqan xumada guud ee bulsho ahaan haysata ee nabahdisha maxaadan uga hadlaynaa wadaadaadtiin waxaa tiraheen cilmigii iyo aqoontii baan baranay cilmigu waxa waa diini iyo maadi diiniga baranaa dhahdeen waa uga hadlay laadiin dhibaatooyinka bulshada haysto wadaadadan abura afka ka aburaaya oo reeraha la kala safanaya ayaguna maxay ahaayeen maxaad ahaydeen ya wadaada laga heebaysto ku soo koray aan hebelowba la dhihin iyo yow yahay aan la kala jeclayn hadda xaalka waxa waa wadaadka tolka iyo waca wariyaalihii alla yahay quraanku taliyo tol male quraanka qofkii ku saarta ku saarta qofkii akhrisa qofkii ku camal fasha tol ma gala quraanka xaqeeraha ula kala safaysin marka dadka siyaasadda xukunka haay wadaadabatiina ma naga xishootaan waxaan rajaynayaa cilmigii ilaahay oo aad barateen inaa ummadda uga shaqaysaan ood xumaha kaga reebtaan casharkan buug 1 ilaa buug 10 isku midka ee ood noo aqraysiin oo ah naagtoona ninka daacda naagtoona ninka xidhay naagtoona ninka saan ku noqoto naga joojiyo casharkaas waa naga horyimid waana barana inta barano aan naqtiin casharkii yaa casharka ma dhamaado waa baranay oo wadaado waa baranay casharka ninka loo sujuudo ninka saaha loo yeelo ninka haboob la yeelo ninka kabaha laga daba qaado jannada la gala kana la suuba wax jannada galaya ilaahay ajannada naar noo haaye casharkaas anaka waa baranay 10 jeerna waa naqtiina bas naga joojiya marka noo sheega maxaa anaka nimanka xaq ugu leenahay adaa reeyalo inta ma noo sheegi kartaan annagu maxaan xaq u leenahay nimankan mu sheegi kartid kirkiriyada ah oo meel walba gabdhaha ku jiidaay mu sheegi kartid waxa anaka xaq u leenahay war gabadha ninka waxay xaq ugu leedahay gabadhiisa mu sheegi kartid oo nimankan inta aroosay haday rabaan soo furfuray oo wali meherkeena haysto u sheega meherkeena hana siyaano meherka waxa waaye deyn ma galo aan ma gorna iska sheega intii soo aroosto meherkayga waa rabaa ana hadaa rabaa barnaamijkan dhan waxa ugu tala galay inuu barnaamijyada kale la saan qaadi karin ani ma go hadaa rabaa kii soo aroosto oo inta ku jiro oo imaqlayo meherkayga qabo hadaa rabaa meherkayga waa rabaa ani ma afin wadaado idinka u sheega nimanka meherkeena hana siyaano nooga qaada meherkeena ilaahay baari waay oo ilmahana biilkooda nooga qaada oo nimankan jinna cadde oo 12 naagood raadinay ilmihiina nagu wada dayacay u sheega ilmaha muudkooda ha bixiyaan habaaray qabaane ya ha bixiyaan meherkeena ana ka iskale hadaa rabno masaajid waqafaan ku darsayna aan dhisayna hadaa rabno maxay ahaatoonay masaajida ugu gadanayna maxay to kabartooyin ama waxaan ku soo xurmaysanayna kitaabo masaajidka dhigahayna saar rabna ana ka yeelana meherkeena anu kaal laakiin meherkeena waa rabnaa meherka dumarka siiya halkan baa laga sheegay dariskayga nin gabar guursado single mama waxa raacaya marka hore meherkayga waxa waaye tiro 4,000 waana single mom 4,000 hayaa yiri waxa raacaya magta kuleelahaaye kulaalka marka uu iska dajiyay meherkiisii tiro waxa uu ku siimayo wallahi oo billahi oo talaa waa magaalada aan deganaa xaafadayda war waxay tiro nin meherku dayn ma galeekeen maya waayahay walba guriga waxaad ku soo dari lahayd nakeen ma haayo waxa uu siira marka intayna iyadu dadka u sheegin adiga dadka uga hormar
waaba kii baxo meel walba oo shaah lagu cabaayo waa kii gabadhi ka sheegay waxa waaye meher ay igu haysataa laakiin waxa waa ma taqaanaa balse qajaanimadan eegaya meher bay igu haysataa laakiin wallahi ninka waa aqaanaa ana kale mana jecel hadda waxta ibaqlaa cawad meher bay igu haysataa waxa weeye laakiin ma taqaanaa fiican ma aha ima qanciso fiiri حتى أو شيء أو ده نفتر كذا ما قنعيش جوجش يقول قنعي ويدا كمان ديكبا مهرك يجوجش محل اسكو حرة تلفزيون كان أو تصور كذا تكاحل لابي أما كل شيء قوي مية أو مركع على صلاة الجسوع علاج ما أما أكو قنعي ويسا أما يأكو قنعين أديك واحد استعمال شمعنا قبلان ها iska bixiya meherkeeda mid kale meherka habeenka ina isticmaal lagu la sugo ma baahan ba habeenka lagu meher ina iska dhiibtay kaas amal waana ogahay ninkaas 10 jeer oo aaday xamar asoo oo wuxuu doontay madaxnimo doontay ninka waa aqaana wallahi waa aqaana ilkiisa ahay la kaaniga kaas amal idin imaanay xildhibaana siinaysan ama wasiira ka dhigaysan kaasoo kale noo xisaabaysid muxuu og yahay lacbeeshkaas waxba ma ogo naga hagaaga qoliyiina gudaha jooga waxa ku soo haray dadka dawladnimada ka taliya oo kolba nin baa imanaya ninna wuu tagaya dadka Soomaaliya madaxda ka noqonaya oo go'aanka wadanka iska leh please hadda ka bacda ka fiirsada qurba joogteedeen imaanaysa kuwii soo qasaare ee lagu soo qasaare ee ugu xumaayadeen imaada qof fiican oo wax raba oo maxay ahatoon wax garanaya oo damiir iyo dugaal leh asagoo da'da pensionka gaareen inta ilmihiisa iyo xaaskiisa iyo soo dayaco meedeen imaanayo absolutamente meedeen imaanayo aad uga fiirsada fadlan priority-ga siiya dadka wadanka intaasoo sano xabadda ku dul socotay ilmaha jaamacadaha waalidkooda ay ka saareen oo intaasoo sano ay rafaadka ku koriyeen oo inta ka gambo inta qaraxa ka dhacay qaar ku dhaawacmeen kuwaasi priority hadda ka bacdi kuwaan qurbaha ka yaacay fadlan ha u dhiibana xil dadkan bacaha ku sita kaniiniyada fadlan dawladda ka dambaysa dawladda hadda waqtigeedu waa dhamaaday dawladda ka dambaysay ha u dhiibana xukun yeynana matelin dadna yey matelin xabad ma galaan hadday idin imaadaan xera ku aruursha badar ku siiya bas waa dhamaad waaba hadday idin yimaadaan oo awoodaan xera ku aruuriya badar ku siiya ku xanaaneeyo doctor xabaab uu waxa ha soo daaweeyo taqaatiir kale uu waxa jawaanada daawada ay ka dhiga fiirsha caafimaadkooda fiiriyo mid fiican u qora wadanka ha ka gataane laakiin xukuna noogu dhiibana believe me wallahi I'm serious daacada iga taa noogu dhiibana xukuna noogu dhiibana ugu dambeyntii waxa ku soo gabagabaynaa hal is ixtiraam yaa la isku xadgudbin gabar walaashaha caayin nimanka yaryar oo surmindiyaasha ah waxa waa ficin raadsada hasbuukaya darina maamo iyo eedo iyo malagu qaba iyo abaayo hasbuukaya darina waxaas ma socdaan waa soo gubanaa naka barfsa u soconay waxa xagaa noqonay maaragtay nood buulka dadka yihiin nood buulka ku noolaayo oo culayska jiidaya camal aan noqon dhagaxa noqon ma fahamto waxa ku soo haray qorax joogto aaminsan qurba joogto waa leezimay ma aha canshuura bixina waa shaqaysana qurba joogto soo ogaada ballankeen waa saas taasna kula dardaarmaa iyada ka hoos bixina hadda ka bacd waa shaqaysana عشورة بحنا تكس باير سنها وذا أمريكا جوجنا أستراليا جوجنا نيوزيلاند جوجنا يوروب لن جوجنا اسكندنافيا جوجنا يوكي جوجنا ماشان دونا جوجنا واشقة سنة رجعنا أنت جوج واشقة كوسو أو قحية إنك يجيني بعض أو حاجة يكون أنت كويرسكم مثل معها كون أنت كوير واشقة we work hard we pay tax باير سنة wadamada joogna awoodaan ku leenahay awoodeena ma isticmaalno sababtoo xawaa waa kala qaybsanahay intaas waa ciladeena intaas waa inta ka midoobayna leeyahay
midowgana waa imaana UK hadda arrinta idin sheegaa ka socoto dhaqdhaqaaqaas ka socdo council sameeysanayna oo noo sii bedela maxay ahayd toonay noo sii bedela arrimihii ay noo qaban lahayd safaaradda iyo qonsuliyadda si sameeysanayna dowladda Ingiriiska waa la xisaabtamayna danaheena gudaha waa kala xisaabtamayna dadka gudaha waxaa isku dayaynaa intaan midowga jecel inay midayno onta faraaruqa ka saarno waa isku dayaynaa bilaa ilaahayna la garab galee dibaddana waxaa dowladda kula xisaabtamaynaa oo Ingiriiska lacagta ay wadankeena siiso because lacag maalin walba boorso laga buuxaayo anaka ma hayno cashuurta aan bixino meesha ku baxdo wayna ogaano ya xisaabaan ku leenahay dadka ka dhalashadiisa haysana waa degana ilmaan ku dhalna ayaan ku noqonaynaa hada anoo kale canugeyga aan keenay ayaa canug ku dhalooyahay sanadka dambe canug u dhalanaa bartamihiis ayay noqonaa cunugaas aan ayayadu u ah ya meel kale ma yaqaano kaygina meel kale ma ka saayo asoo yaraa laga soo wado wadanka kuwii aan inta ku dhalay hadday iyagana guursadaan kuwii kale sii dhalay iyaguna meel kale ma yaqaanaan so two generation Britain ku yeelana aniga in Muuse weeliya caddo jinqow ya two generation ku yeelanayeen marka xawaay alka xishoono kala xishoono Soomaalida wadankan joogto waxaan kula dardaarmaa bilis wax barta wax barashada laga magaboobo wadanka Ingiriiska waxa uu ku fiican yahay waxa waay wax barashada ina helaysid waa helaysaa wax barashada kasta oo taxbaab helaysaa wax barta isku dadaala isdhisa ha isliidina gabdhaha oo maxay ahayd toonay gabdhaha si galmaamiska waxa idin leeyahay geel laba jir soo wada mar wala soo wada dhibtooda priority waxa oo mudnaanta siinaysan marka reerka ku dadaal reerkaaga inuu ku dhisnaado laakiin wad hadaad isku hayn kari weydo waxaad siinaysaa mudnaan naftaada ka bacdana waxaa mudnaan siinaysaa caruurtaada laakiin koow naftaada because aday hadaa dhimato cunug ma noolaa kara aday waa ina badbaado ka bacdana ilmihiina si fiican u korsada forget about ninku furay ninka tagay forget about haka daba calaa ya be Somali woman gabar Soomaaliyeed noqo gabdhaha Soomaaliyeed adkaysi iyo geesinimo lagu yaqaana hajaxin adkayso korso ciyalkaaga ya korso one step at once hal talaabo marqaad ha iska waalin lafahaaga ku dadaal caafimaadkaaga ku dadaal jirkaaga ku dadaal quruxdaada ku dadaal ha burburi ilmahana cadaawad ha u gelin aabahood ha ku hor sheekayneen dhowr jeer horena waa sheegay aabaha kana hadaa tiraa odaga caasi ku noqonayaan adina caasi kugu noqonayaan caasi waalidiin ma kala qaybsami karo ilmaha intuu hal waalid caasi ku noqdo waalidka kala baari uma noqon karo labadaba caasi ku wada noqonaya si taas u dhicin waxba ha uga sheegin aabahood haduu si kasta u xun yahay let it go waxba ha uga sheegin waxaa tiraahdaa hortooda ha ku xamanin saaxiibada xataa markaa rabto inaad la sheekaysato ama ninkii saanawiyanaa waa iska sheekaystaa waa garanaa ilmahaaga ku maqlaaya ha kala sheekaysano dumarka kale arrimahaaga because ilmihii way qabanayaan xataa markay aad u yaryariin way duubayaan ka bacdi ayako xanuun ku noqona waxa kale ogaataa dac kasta oo jirto ninku jecel helaysaa oo ku gursanayo gablan ma tihid ilmo loo dhasho ma ahee gablan ma tihid gabar Soomaaliyeed tahay sharafaa leedahay sumcadaa leedahay xurmaa leedahay haddii ninka ilmaha u dhasho uu xurmada garan waayo iska dhaaf aboobo kala imaanayo oo xurmadaada garanayo ya isnabadgeliya idinkana nabadgala ubadkiina korsada dad is ixtiraam noqda kuwa gudahow sida uu ogaada kuwa qurbaha inay yihiin idinkana waa idin soo duceynayna wadankeeni dadkeeni waa jecelnahay kamana quusan waana soo noqon doona waa imaan doona maalin unba imaan doona wada ama anako meedaho nala wada nala keenaya oo lagu aasaya ama anagoo nolol lugaheena ku socon imaanayaaba labadaba ahaatayaaba mar unba imaan doona laakiin ma aragtay dad markay haday gudaha joogan ee dibadda joogaanba dadkooda matali kara noqda
magac Soomaaliya hugan tahay markii lagu arko nadiif adoo jahaaga oo fiican oo dhalaalaay Soomaali fool xun ma jiro dad fool xun maneen anaga we all have romantic faces matali kara noqda oo dadkooda u taagnaan kara noqda ajnabigana ha isku xamanina ani shirran ka qayb gali jiro marka hadda waa iska joojiyay shirab ka badan hadda kama qayb galo oo dadka ajnabiga ay Soomaalida waddanka laga waco sababaha iskaga joojiyay waxa kamid ah ajnabiga iyo Soomaalida kala ku xamanay ajnabiga waxay dhahayaan Somali people that war adiga Somali people adiga Somali matiido ninkan oo maxay ajnabiga maxaa ugu sheekaynaysa inaan qaruun kala tahay adiga oo ka timid marka please be respect each other is احترام haka tagina xurmada iyo ixtiraamka haka tagina xishoodka haka tagina caayina social media isku caayaysan dhaafa social media faa'iido badan oo leeyahay waa lagu shaqeystaa business lagu sameystaa wax badan lagu sameystaa ku shaqeysta wax ku sameeysta gabdho idinkana ugu dambeyntii idinka mar kale idin la dardaarma gabdho be strong noqda hana maqlina inta yar rag intooda badan oo fiican iska dhaafaa waa dad fiican laakiin inta yar xumuhu maarata ku qunfula naag waxay tahay meelaha la taagan ha dhageysanina waa aqli gaabidooda intaas dhigtay waanigi barnaamijka horaantiisa ku soo sharaxay waay ninka maxay tan dalqada afkiisa loo galiyo gabadha loo galin waay waa soo sharaxay already ma fahamta wadaadado idinkan intaad ilaahay ka cabsataan oo nabigeena ku sallallahu alayhi salaatu wasalaam xumaha ka hadla oo ragga dumarka bahdila ka hadla oo maxay ahayd toro dumarka naftirkooda iyo waxyaabaha qaladka ay sameynayaan ka hadla oo ilmaha caruuraha ah ee meel walba lagu kufsanayo dibad iyo dalka hadla oo musuqa ka hadla oo qabyaalada Soomaalida dhexdeeda ka hadla annaga noo sheeqaynina intaad maaragtay qamiis noo soo gashataan carbeede hadla oo noqda dad wadaada oo kaalintoodii ka soo baxaya noqda oo halaydin ku nafiso halaydin ku aflaxo wadaadaad diin dadka diinta ka wacdiya qabyaalada ka wacdiya musuqa ka wacdiya qofka oo xukunka loo dhiibo oo hadana xukunka iyo xafiiska loo dhiibo daacad dareeya maaragtay caaqab xumada ay leedahay kala hadla oo diinta u cuskada anaga leeyahay nagu soo taagnaanin naagtu waa inay ninka saas noqoto naagtu waa inay ka noqoto naagtu waa inay hoos fiiriso naagtu waa inay neefsan naagtu waa inay inta u jeeso naagtu waa inay bari dayin waa inay koofur dayin waxaas war maahe casharkaas waa ka dharagnay waa naqtiina sad noogu naqayseen madaxiya nagu xanuuna waa xafidnay bas dhinaca kale u rog casharka waa mahadsantiin sida ay daawateena aad iyo aad ugu mahadsantiin mar kale aan ku celinaa dadka gadaal ka yimid barnaamijkan ma ahayn barnaamijyada caadiga ahayd ma ahayn barnaamijyadeedii caadiga ah oo saxaafadda la soconayna ma ahayn mana ahayn kuwii kaleeto oo mental healthga iyo waxaas aan kaga hadlaayay ma ahayn barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka dhextuura marna kaftan ah marna kaftan dhabla ah marna run ah marna waxyaabaha ciladaha aan barnaamijyada kaleeto ii raaci karaynin oonan ku sheegi karin aadan kuugu sheegaayo ahayd saas aan ku ognahay tani kula dambe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.